kaleeta iyo badeeda dad kale ma qaadanayaan dhulal baa naga maqan aan raadsanayna insha Allah maalin laakiin inta aan haysana hadda lama kala qaybinayo annaga hadii aan nahay dad Soomaali ah waxaan nahay dad isjecel waa laga yaabaa meelaha qaarkood in isku xagxagano laakiin hadii runtii ay imaato waxaan nahay dad isku tashto dad walaalo ah dad dhiig leh dad isku og inay Soomaali yihiin inay Muslim yihiin oo iyagana isku hiiliya dadka walaalahoodna u hiiliya marka daraad markii ayaan dhaxdaas markii aan maqalnay in qaar Soomaali ah ama Soomaali sheegato in Ethiopia ay la galeen ما بقى أنا في الصومال وحلو قوله agreement هشيس محمود نور هذا أنا كصومالي كبدي صعب معها تطبضنا يسوع عيو حليهن الهان دولة أمريكا كأن الله هذا الشدواية دولة أمريكا بحاجة خبنا يسار جوابتي إذا وحي هاد دولة أمريكا وحاجة خبنا يسار وحي أنا قاعد نحن دولة أمريكا كخبو وكل سوني ذا سنا أسكو خبنا أنا كصومالي هدي عن هاي ودن كان أنا كأكونه ودن كي أنا كتاكس كديب نوايا وودن كي جبر إذن كدلتين كونغرس كفريسو أنتي أنا كأن كونغرس جوجو ودن كصومالي بيه هذا دت كلاته يبدأ هذا دت كلام قاعدنا عيان ودن كمريكان كانوا كومة هاجيرايو دت كلاته إن أنا كأين دعان marka taaska seexda reer Minnesota gabadhii Congress u dirsateen way idinka warhaysaa sidaad idinka u dareemaysiin dantaas ay u dareemeen madaxweyne Xasan Sheekhna waxaan leeyahay waan kugu faraxsanahay shaqada fiican aad qabatay in dadka Soomaaliya iyo dadka meel kasta ku nool aad dareensiisay si kasta anaga aan u dhibanahay Soomaali hadii aan nahay waxaan nahay dad karti leh dad wadankooda aqoonsan dad wadankoodii aan wiligood danger laga gelin karin marka waxaan reer Minnesota iyo Soomaalida meel kasta ku nool adeerkaya hadda mar dhow ka hadlaayay idinkaga hambalyeynaya sida aad isku wada duuban tihiin sida aad kulligiin u garab istaagteen madaxweynaheena because wuu u baahan yahay in kulligeen aan garab istaagno Soomaaliya waa Soomaaliya waa hal walaalaan wada nahay dhulkeena laga ma kala qaybsanaayo dhulal baa naga maqan aan raadsanayna insha Allah maalin laakiin inta aan haysana hadda lama kala qaybinayo marka waa mahadsantihiin dhamaantiin sidaad ii sharaftiin oo markasta aad iigu soo dhawaysiin ilaahay idin sharfo assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قرأت القرآن كتب ولا ليال marka hore dhammaantiin waan idin wada salaamayaa waxaan idinku salaamayaa maamuuska magaca iyo maqaamka aad meesha ama madasha ku joogtaan marweyn iyo mudanayaal dhammaantiin marka labaad waxaynu isugu imaanay hambaliyada inaan u hambaliyeyno madaxweynaha cusub ee dib loogu cusboonaysiiyey waqtiga dib loo doortay سعيد عبد الله الدني iyo sidoo kaleba madaxweyne ku-xigeenka Puntland Elias Lugator intaas kadib waxaynu la soconaa xaaladda maanta Soomaaliya ay ku sugan tahay iyo sida ay marayso dadka culimada ah iyo dad kasta oo Soomaali ah caamo iyo shacabka كل إني أوجهين حالة مانت الصومالي أي كسوغان تهاي يتحديات كتشالنجز كأي مرة يسو مل أيسن أبيت جارين إن لصوت دمعيو ربيتان كيهانغلتاج دريسك إن حالة داس دنيرو يددوا وين يددوا كل دمان صومالي أي لو صعدته
una diyaar garowdo xaaladda noocaasa marka koobaad marka labaad in la ogaado Soomaaliya inay leedahay guud ahaan fursado aad qaali oo ah laguna khasban yahay markaas inay difaacato qarannimadeeda iyo khayraadkeeda intaba ma isku waafaqsannahay inaan difaacno qarannimada iyo khayraadka Soomaaliya shukran arrinta noocaasa oo fursadaha ay Soomaaliya haysataa iyo caqabadaha ka hor imaanayo oo caqabado badan ay jiraan ayagana si taxaddar leh oo foojigan in loola socdo looguna diyaar garoobo taasna waxaa looga bixi karaa isku duubni dhammaystirnaan midnimo isu soo dhoweyn iyo weliba in si fiican oo dhow la isu dhagaysto dadka cuqaasha iyo odayaasha waaweyn la dhagaysto ilaahay nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay albarakatu maca alkibaar barakada waxay la socotaa dadka cirada leh ee waaweyn marka dadka waaweyn ee khibradda leh ee wanaagsan ee iimaanka iyo muslimnimada ku hanuunsan ee intaas soo tukanaya in la dhagaysto la iskuna duubmo arrintaas waa muhiim arrinta kale aan isku soo gabagabeynaya waxay tahay dhalinyarada Soomaaliya maxaa dan u ah damicii darisyada wuu batay dayacnaantii waddanka wuu batay dhalinyaroy ma dadkii waaweynaa ee Soomaaliya waagii la dumiyey wax ka dumiyey ee duminta qaybta ku ahaa ba annagina la soo qaxay yaryaraayna la weeyay markaan soo qaxnay weli ma ayagan sugaynaa oo aan ka sugaynaa in ayna si hogaamiyaan dhageysano mase shirweyne qaran oo weyn oo dhalinyaro ah oo la isu imaado oo kuwaas hore aan uga tashanaynaan sameynaa marka hore iyo marka dambe ilaahay laga baqo hal isku duubnaado hana loo diyaar garoobo fursadaha in laga faa'iideysto iyo challengeska iyo taxadiga iyo caqabadaha in si feejigan looga diyaar garoobo ugu dambeyntii waxaan u hambaleynayaa mar kale maamulka cusub iyo madaxweynaha iyo weliba madaxweynaha ku-xigeenka iyo dhammaan dadka ka soo qayb galay madasha waa mahadsantihiin wasallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi ajmaciin marka hore waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaam bacdi waxaa mahad dhammaanteed leh allihii subxaanahu wa tacaala ahayna abuurtay halkaan isugu keenay